السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada badbaado action oo ah YouTube channel idiin soo gudbiya ama idiin soo baahiya fursadaha shaqo ee ka banaanaada hay'adaha kala duwan ee ka howlgala deegaamada Soomaalida iyo goobaha ka baxsanba. Badbaado action sidoo kale waxay qabataa arrimaha samafalka iyo wacyigelinta bulshada. anagoo insha Allah rajayn doona hadii la ka dhaw inaanu eriyooyinka kalena hadii dhawaan insha Allah ilaahay idmo aan idiin soo gelin doono. maalmahan baa waanu ka yar baxsan hawada anagoo qalabayn iyo ishagaajin iyo isku dubarid baa ku mashquulsanayn. sida caadada noo ahayd waxaan doonaa insha Allah maanta halkan inaan idinkula wadaago laba shaqo ama laba fursadood oo ay doonayaan inay bulshada la wadaagaan laba hay'adood oo kala duwan. midna ay tahay international NGO, midna ay tahay hay'adaha qaramada midoobay. labadaas shaqo insha Allah waxaan doonayaa in muwaadiniinta kala duwan ee awoodooda inay xareystaan shaqooyinkan ay ka faa'iideystaan si markaan ay xareeyaan. position baa loo baahan yahay waxay u baahan tahay hay'adda SOS Child Rescue International ama SOS ama CVI hay'adda loo yaqaano waxay u baahan tahay finance officer. meeshu ka shaqeynaya waxa weeyaan ama work locationkiisa qofka waxa weeyaan waa Djibouti National Office-ka. isagoo qofkaasi si toos ah u hoos imaan doona ama uu supervise gareyn doono national director-ka gaar ahaan position-kan waxa lagu baahan yahay waa Djibouti. sida markaa aynu booska ka dareemeynaba booskaasi waxa weeyaan waa finance manager. waa qof ku taxalluqay ama yaqaana ama aqoonteedaba leh systemka finance systemka qaabka hay'adaha ama dowladahaba inta lagu dejiyo habka xisaabaadka ama xisaab celinta. hay'ad kasta waxa ku shaqeysaa nidaam finance system ay leedahay. qofkaasi cidda main clientskiisa noqonaya waxaa ka mid ah national director-ka iyo national management team-ka, regional finance-ka ama control advisor-ka iyo wixii la halmaala. shaqada waxyaabaha lagu baahan waxaa ka mid ah key areas-ka ama activity-da lagu baahan qofkaasi noqdo waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano strategic leadership and planning waa inuu yeesho. treasury liquidity and risk management waa in laga helaa. audit waa in wax ka fahansan yahay. eriyooyinka ama HR system-kana wax ka fahansan yahay. administrative role buu yeelan doonaa oo isaguna runtii arrimaha maamulka ah oo in maamulka management system-ka xafiiska waa inuu si fiican u dejin karayo. aqoon ahaan qofka waxaa looga baahan yahay inuu ahaado qof bachelor degree ah oo xagga finance-ka sita ama heerka koowaad ee jaamacadda xagga xisaabaadka inuu sito. ama ACCA holder waa inuu ahaadaa ama wixii la halmaala ama ka sarreeyaba 3 sano oo senior management leadership position-kan waa inuu aqoon u leeyahay oo weliba gaar ahaan ay jooyada qofkaasi la soo shaqeeyay. shuruudu waa fara badan yihiin looga baahan yahay ilaa waa 12 shuruudood. si aad markaa position-ka u xareyso aqoon dheeraad ah aad uga hesho fadlan booqo Somali Jobs oo ay ku jirto shaqadaasi oo faahfaahsan. marka system-ka aad u abalaal garanaysaa waa system email baa shaqada lagu dirayaa iyadoo hard copy ah. shaqadaasi laba qabanayo waa inaad email ku dirtaa adoo emailka isticmaalaya hr.tv.sos/Djibouti ama underscore. emailka marka waxaad ka helaysaa sidoo saxsan waxaad ka helaysaa Somali Jobs. shaqada labaad doon insha Allah halka maanta inaan kula wadaagaan waxa weeyaan shaqo dib loo soo xaysiiyey oo hay'adda barnaamijka cuntada adduunka WHO ayaa markaa position-ka soo xaysiisay. magacidii markaa buuxin lahayd way awoodi weyday dadkii ama soo codsaday shaqada iyada ah may noqon kuwa buuxiya shuruudii. waana runtii shaqo fudud weeyaan marka si loo eego waa shaqo qofka saxareyn karayo
preferably shaqadani waa program associate qof ku shaqeeya loo baahan yahay oo ah fiilka nutritionka numberkiisu noqonaya G6 buu noqonayaa waxa uu ka shaqeyn karaa qofkaasi ama ka shaqeynaya garowa loo baahan yahay tago qofkaasi ama garow gudaheeda ku xareyso dawladdu leeyahay deegaanka soo shaqada deegaanka soo laga soo xareeya oo waa boundary-geedu ma xadidna Soomaaliya laga soo xareyn karaa Somaliland baa laga soo codsan karayaa Ethiopia laga soo codsan karaa Kenya laga soo codsan karaa waa shaqo open ah waana shaqo fudud marka si loo eego qofkan markaa waxa weeyaan fixed timekiis waa Africa waa Central iyo Eastern Somalia Garowe working location marka qofkaasi WF u baahan tahay inuu haadaa qof high integrity ah oo professional ah oo wax ka yaqaana humanitarian principles mabaadi'da ay ku shaqeeyaan hay'adaha ka shaqeeya samafalku shaqadan waxaa deadline-keedu yahay August 10-keeda waqti badan baa ka harsan 10 cisho 10 days qofku waa ku diyaargaroobi karaa shaqadaas iyadoo kolley faahfaahsan oo description-keeda iyo waxa looga baahan yahay faahfaahsan Soomaali Sooska ku jirta qofkaasi headquarter-ka Puntland buu ka shaqeynayaa haddii xagga aqoontan u baahano inaan wax ka sheegno waa iska fududahay waxaa la yidhi waa secondary school certificate waa la baahan yahay waa secondary ama inuu sitaba certificate in nutrition oo ka soo qaatay international health and nutrition wax ka yaqaano public health wax ka yaqaano qofkaasi policy nutrition policy-ga and management wax ka yaqaano family health wax ka yaqaano nutrition or food technology is required sidoo kale taana waa loo baahnaanayaa therefore inaha waa inaad soo barataa muhiim oo tahay qof basic education xagga caafimaadka leh aqoon u leh 2 sanana waa inaad waxyaabaha kusoo shaqaysana waa loo baahan yahay ama arrimaha caafimaadka ku shaqaysay waa inaad sidoo kale aad leedahay aqoon wanaagsan oo dhinaca waayo-aragnimada ah oo xagga dawladda iyo qaybaha kala duwan waayo qofku waa inuu yaqaan dawlad yaqaan waayo badanaa mashaariicdani dawlad baa ay dabada ku yeelanayaan qofku waa inuu la yaqaan ama la macaamilka dawladaha oo xaggaan uu ku fiican yahay waa inuu sidoo kale aqoon leeyahay bal leeyahay support programka iyo waxaan loo yaqaan monitoringka iyo qaabka implementationka dabagalka iyo fulinta ereykaas oo dhan waa inuu sidoo kale aqoon leeyahay capacity strengths awdiska hay'adaha dawliga iyo kuwa dawladda waa inuu aqoon leeyahay luqadiis waa inuu dee aad ugu wanaagsan luqadda Afghanistan iyo Soomaaliga maadaama konton Soomaali lagu shaqeynayo laftigeeda waa inuu Soomaaliga si fiican u yaqaan qofkaasi waxa kale jira loo yaqaano knowledge and skill ama aqoon iyo xirfado waa inuu leeyahay gaar ahaan dhinaca organizations waa inuu aqoon leeyahay management and ability waa inuu awood leeyahay hab maamul oo awood u leh waa inuu leeyahay gaar ahaan waliba hawlaha ku fikir qofku waa inuu awood maamul leeyahay si hawlaha u fuliyo record keeping fiican waa inuu ku leeyahay xagga maxaa la yiraahdaa practical experience-ka reporting waa inuu yaqaanaa data analysis marka warbixin soo gudboon kala hufo qofkaasi wax fahmi karayo ciddii shaqada u baahan maxaa dowladda soo xareystana waa inay online soo xareysato oo maxaa la yiraahdaa through e-recruitment qaybtaas ama ayaa lagu xareysanayaa wixii intaan aan qaabka soo xareysan haddaan e-recruitment ahayn laba aqbalayo waxaan la soo xiriiraya cidda kaliya ee la soo shaqeeyo sanadka ugu horeeya ama 1 year baa noqon doonta shaqada marka hore haddii hadhowna maxaa la yiraahdaa qofka aqoontiisa lagu qarxiyo aadamadiisa shaqada loo baahato waa la korinayaa waxa aad loo dhiirigelinayaa haweenka oo ah kuwa la sii prefer garanayo qofkaas waa inuu WF waxay leedahay wax loo yaqaano WF has zero tolerance ay leedahay barnaamij oo ah waa inuu qofkaasi ka marnaada loo baahan yahay taxadiga waa inuu cid ka xadgudbin waa inuu HIV/AIDS dadka
xanuunsanaya aanu ka dabqanin oo calaashaan aan oran iga kaxeeya ama qofka ma arki karo waa inuu deegaanka xanuunsanaya joogaan xitaa ku shaqaysan karaa zero tolerance hadaad markaa qofku yahay qof diidan dadka neceb ama inuu arki karinba uma saamaxaysa inuu deegaanka dhibleedka ku shaqeeyo shaqadaas aad xarayso booqo Somali Jobs si aad warbixintaas u faahfaahsan hesho mar walba xaqna soo dhawow wixii aad iiga baahato anigoo Cabdiqani Siciid Hayaano oo ah directorkii barnaamijkan Badbaado Action waxaan idinka codsanaynaa ila soo xiriiraan oo Facebook iyo alaab salaam Maxamed iyo WhatsApp ka adiga soo xiriiri kartaan si aad ku baahin badanaaba muuqaalada qaybta salaan saarno fadlan ila soo xiriir waan ka caawinay wixii aad iga baahato nasiibka hadii laga caawinayo haddaad u baahato markaa inaad shaqada xog dheeraad ka hesho lafteeda we can help you at any matter marka wassalaamu calaykum warahmatullahi taala wabarakaatuh